war ilmaha yar baa iga xanuunsanaya ilmaha yar hunguriga xidhan halkaas uu ka xidhan yahay iskaan baa waxa aan soo saaray maalin dhaweyd waxa la igu yiri dhakhtar gudaha waxba laga qaban karo bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah deeqa cabdi faarax maxamed yaro oo xanuunsanaya hooyadiisa waxaan Soomaali weyn ka codsanaya in xaaladda maxamed yare ay igala qayb qaataan maxamed yare xanuunka ayaa waxa weeyaan dhuunta xiran toobada cuntada qaada ayaa xiran saadarteed waxa la yiraahday dalka waxba laga qaban karo ilaa dibadda mooyaan marka Soomaali maxamed waxaan ka codsanayaa inay iga soo caawiyaan qarashkii maxamed yare caafimaadkiisa aan ugu raadin lahaa ilaahay baa caafimaad haya iskaan baa la geliyay iskaankii baa sheegay in aan dalka waxba laga qaban karayn marka maxamed xaaladiisa Soomaali weyn waa taas waxaan u baahanahay si dhaqso ah inaad ilmaha yarka igala soo qayb qaadataan waxa weeye caafimaadkiisa aan ugu raadin lahaa waxa kale oo aan halkan Soomaali maxamed aan uga sheegaya in iskaanka xataa lacagtiisa laga bixiyo aan anigu awoodi waayay wiil ariga Mareykanka jooga oo iga soo bixiyay lacagtii lagu saaray iskaanka maanta waxaan u haynaa aanu jirin marka Soomaali waxaan ka codsanayaa inay ugu dambeyn iga soo caawiyaan maxamed yare xaaladiisa caafimaadkiisa iyo waxa weeye waxaan qarashka aan ugu raadin lahaa caafimaadka dalka dibadiisa wax laga qabanayaa baa leeyahay toobada cuntada qaada baa xiran anigoo ah abwaan saad maxamed saad oo dhafan ku magac dheer oo nin reer laascaanooda ah oo dadku wada garanayaan ummadda muslimiinta maanta waxaan ka codsanayaa intii magacayga iyo muuqaalkayga taqaana iyo intii islaamnimo jirkiisu kaaya damqanayo iyo intii Soomaalinimo jirkiisu kaaya damqanayaba war ilmaha yar baa iga xanuunsanaya ilmaha yar hunguriga xidhan halkaas uu ka xidhan yahay iskaan baa waxa aan soo saaray maalin dhaweyd waxa la igu yiri dhakhtar gudaha waxba laga qaban karo waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ilmaha yar ninkii aabba uu garanaya dhibta ilmo yar oo xanuunsanaysa ay leedahay wiilka iyo labada gabdhood ee walaalaha iyaga islaamkaana waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa iyagana aanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay caafimaad sareecana siiyo booski ay ka soo saareen wax khayr qaba ilaahay ugu bedelo raafka iyo Mareykanka hawshiisu badatana in ilaahay bilaayada ka xijaaba ayaan ilaahay uga baryaynaa wiilkaas iyo labada gabdhood ee walaalaha ah ayaa iga bixiyay iskaankii aan ku soo saaray dibadna waxa dhakhtarkiigu yiri dhakhtar dibadeed la aad marka dhakhtar banaanka in la geeyaan rabaa waxa allaale waxaan hayaana ma jiro sakeel baa hoos yaala caanaha markuu cabo markay dhuunta gaaraan ee meeshii xidheed ay marayaan ayuu soo celinayaa habeen oo dhan ma seexdo waa ka saaw qalalay falebooyin baan ku wadaa DNS marka waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaanba inay hawshaas wax igala qabtaan oo laa ilaaha illa allah maxamedur rasuulullah ay wax igu qabtaan baan ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed sida ay sheegeen maxamed yare hooyadiis iyo aabihiis oo saaxiibkay abwaan saad horta ilaahay caafimaad baan weydiinayaa maxamed yare inuu ilaahay caafimaad waasac siiyo waan dhalinyara waa curadkii abwaan saad oo abwaan dhafan u garanaysaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan leeyahay deefka xulusiyaha aakhir waxba la isumaaha runtii